السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta jawigu aad buu qurux badan yahay. Caadi baa sii dhacaysa, waa jawi aad iyo aad u qurux badan. Waa kan halkan baan taaganahay. Wadooyinka aad baa loo qurxiyay, loo wanaajiyay. Markaa laakiin caqabada wadooyinka hayna haysta waxa weeyaan shirarka ugu badan dhaca waxa weeyaan taxadir la'aan xagga darawaliinta. waxaa kaloo jirta gaadiidkeena waddanka yaalla oonu diyaarsanin isaguna, yani aan wadadan u lahayn. iminka anigu gaarigan wado xagga baan ka wadaa bidixda, oo steerkii gaariga wuxuu ka yaala xagga bidixda ah, laakiin baabuurta ugu badan magaalada yaallaan steerinkoodu waa xaggan. maadaama xaggan yahay qofka gaariga markuu wado ma arkaya gaariga kasoo hor socda, yani meeshuu kaga yaalo. iminka markuu xaggan fadhiyo darawalku xaggan soo fadhiisto, gaariga uu xaggan ka wado, yani gaariga halkaa kasoo socda ma arkaya markuu isleeyahay gaari kala dhaaf. laakiin hadduu xaggan ka fadhiisto labada dhanba waadix buu arkaya, gaariga sii socda iyo gaariga soo socdaba. marka dadkeena ganacsatada baabuurta soo dejinaysa waxay fiican inay soo dejiyaan baabuur steerinka xagga bidixda ku leh, sida kan oo kale. ama ha sameeyaan dowladdu wadada hala kala bedelo sida wadamada qaar. iminka labada gaari markaas dhaafayaan xaggan buu gaariga bidixda laga dhaafaa. waa wadooyinkeena waddanka ku yaalla. laakiin haddii noqon lahayd in baabuurta xaggan laga dhaafo, baabuurta ugu badan maadaama xaggan steerinka ku leeyihiin, waxay fiicnaan lahayd in wadada la kala bedelo. marka xalku wuxuu noqonayaa, maadaama gaadiidka waddanka oo dhan la bedeli karin, in wadada la bedelo sida wadamada qaar sida ingiriiska oo kale. xaggan waa laga baas karaya gaariga, wadadan iyo baabuurtan waddanka yaalla isma laha. marka halas waafajiyo xaggaasana safe badan gaariga marka xagga laga dhaafay. waxaa kale aan imika waxaan tegaya xaggan gaariga ka wado, xaggan aan ka wadaya marka gaariga. maadaama xaggan gaariga ka wadayo, gaari kasta oo aan dhaafayo iyo haadka wadada ka isticmaalaya wuxuu noqonaya markaa haad saxa. imika wadada waa taa, anigu waxaan xigaa xagga gaariga kale baan xigaa. xaggaa maadaama xigi lahaa intaan xaggaa xigi lahaa xaggan baan xigaa. marka xariiqda wadada ku taalla baabuurta labada xaad u kala dhexaysa wataa, xaggeedaan anigu xigaya. waa wadada ugu saxsan iyo gaariga ugu saxsan. markaas helaan ma ka dhacayo wax shila, wadooyinka ma dhacayaan. shilalka ugu badan waxaa sababa waa steerinka khaldan iyo wadadan aan is lahayn. marka waxaan leeyahay dhammaan galab wanaagsan. wadooyinka waddanka waa laga shaqeeyay, laakiin systemka baabuurta wax badan in laga bedelo weeyaan. wax badan in laga bedelo weeyaan. iminka xaadkaaga markaad haysatid gaarigana steerinka sida fiican uga wadid, aad iyo aad bay maaragtay noqonaysaa wax aad ku raaxaysanaysid kaxinta gaariga, aanad wax cabsiyana la kulmaynin. maadaama adiga xigtid xagga steerinka wadada, baabuurta kale aad xigtid xagga steerinka kale ku yaallo, oo very easy wey markaas sidaad wadada. waxaa kaloo muhiima calaamadaha wadooyinka ku yaalla inay darawaliintu raacaan. halkaa waxaa ku yaalla calaamada sheegaysa inaan 80 gaariga dhaafinin, xawaaraha gaariga inaan 80 dhaafinin. marka waa in 80 kagu socdo calaamada wadooyinka. sidoo kale waxaa jira calaamado wadooyinka, imika calaamadan dhaafiyo kale ee googooska waxa weeye waa meelaha la isku dhaafi karaya weeyaan. meelaha markay xidhiidhaysan tahay calaamada dhexena waa la isma dhaafi karo weeye, yani gaari ka horreeya ma dhaafi kartid meelahaas oo kale, sida gooladaha oo kale.